ومركي ugu horeysay oo ra'iisul wasaare xilka haya dalka Israel lagu soo ogo arrimahaasi Afishe Mandalbet waa qaranka guud ee Israel waxa uu muddo bilooyin ah baarayay eedeymahan dacwad oogista rasmiga ahna waxa ay ka kooban tahay 63 bog Netanyahu waxa lagu eedeeyay inuu hadiyada qaali ah ka aqbalay saaxiibo bilyaneer ah si ay ugu fududeeyo in warbaahinta Israel iyo telefishinka aanay warar wanaagsan aysan ka gudbin aan wanaagsanayn waa kan hadalka qaranka guud اليوم مساء ويوم كشاف عطوف ومالين علوس ومروله ما أنت وحى أنو قاسيي قرينا ذا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قان كيغا هنا نكسو اوغي سدح دعوة رسمية ومالين وقرين كجود وقان صدي إن ودنبي علوس ومسوق ماسوغه وكسو اوغو رئيس الوزراء حلك فردية ومالين أضب ومروغة كواه أنيغا إيا شعب إسرائيل מבחינת הציבור בישראל ומבחינתי באופן אישי haddaba sidee buu ra'iisul wasaare Netanyahu arrintan ugu falceliyay aynu wada daawano sida uu yiri كأهل אנחנו יודעים waxaanu goobjoog ka nahay isku day afgambi oo lagula kacayo ra'iisul wasaare xilka fadhiya taasoo ku salaysan been abuur iyo baadhis baadil ah מזוהם ומגמתי אני לא אתן לשקר לנצח ma ogolaan doono in beentu guulaysato dalka waxaan ku sii hogaamin doonaa sida sharcigu qabo mas'uuliyad iyo daacadnimo iyo inaan ilaaliyo amniga iyo mustaqbalkeena תוך דאגה לביטחון ולעתיד של כולנו bal markana aan si hoose u eegno eedaha musuqmaasuqa ee loo haysto Netanyahu kiiska koowaad waxa uu la xiriiraa eedeymo ah in uu qaatay hadiyado isugu jira sigaar khamri iyo dahab oo uu ka helay bilyaneero uu ka mid yahay ganacsataha Hollywood ka tirsan ee la yiraahdo Arnold Milchan iyo ninka reer Australia ee qamaarka ka ganacsada James Baker waxa la sheegay in ay dana gaar ah ugu bedelanayeen dacwadda rasmiga ah ayaa ah hadiyadaha uu qiimahoodu gaarayo 194,000 bedelkeedna Netanyahu ayaa la sheegay in uu gacan ka siiyay Milchan oo ah nin reer Australia ah oo soo saara filimka la yiraahdo Pretty Woman si loogu dheereeyo viisaha dalku galka Mareykanka sida ku xusan eedeymaha kiiska kale ee isna waa kiiska labaad Netanyahu waxa lagu eedeeyay in uu la xirtay wargeyska ugu iibsiga badan wadanka ee la yiraahdo Youtube Arnold si uu u dhaawaco warbaahinta kale ee tartanka kula jira bedelkeedna uu helo warar sumcad dhisid ah kiiska saddexaad ee ugu adag Netanyahu waxa lagu eedeeyay in uu shirkadda isgaarsiinta ee Bazeq la yiraahdo ee Israel uu ballan qaaday abaalmarin qiimaheedu uu ku dhow yahay 258 milyan si ay sheekooyin wanaagsan uga soo gudbiyaan shabakadooda wararka dhammaan dacwadahan laga soo gudbiyay Netanyahu kiiskan ayaa kan kaliya ee si weyn laaluush ula xiriira Netanyahu waxa uu mutaysan karaa 10 sano xabsi ah hadii lagu helo laaluush hadii isdabamarin lagu helana ilaa iyo 3 sano ayuu wajdihi doonaa waa kan Nathan Sakis oo ka tirsan macadka Brookings It's a momentous time. ووقت مهمة نتنياهو ورئيس الوزراء ugu muddada dheer taariikhda Israel arintani waxa laga yaabaa inay calaamad u tahay dhamaad kiisa waxa xusid mudan in Netanyahu uu sanayn hogaamiyihii ugu horeeyay ee la kulma xaaladan oo kale ninkii isaga ka horeeyay Ehud Olmert waxa uu xabsiga u galay eedeymo kuwan la mid ah laakiin dabcan isagu waxa uu iscasilay waqti badan ka hor inta aan la xukumin waana halka ay ku kala duwan yihiin falcelintii Netanyahu uu maanta ku tilmaamay inay afgambi ahayd iyaduna waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ama uga duwan yahay ninkii isaga ka horeeyay dadka uu tilmaamay inay horboodayaan afgambigan waa shaqaalaha rayidka ah ee uu isaga gacantiisa ku keenay tusaale ahaan qaranka guud oo uu isagu magacaabay xaqiiqdii iminka waa xilli xiisada siyaasadeed ee Israel ay aad u kacsan tahay taas awgeedna waxa laga yaabaa inaanay arrinta Netanyahu soo degdegin laakiin dhibaatooyin xoog leh ayuu dhexda kaga jira waayo madaxweyne Donald Trump dhageysi kale ayaa iminkaba socda dhageysigaasi waxa cadeymo lagu weydiinayaa dad kala duwan oo iyagu la doonaya in ay ku qiraan madaxweynaha inuu arrintaas sameeyay iyo in kale waa kan mid kamid ah David Holmes oo isagu cadeyn bixiyay
Beginning in March marka laga soo bilaabo Maarch 2019 xaaladda safaaradda Mareykanka ee Ukraine way isbedeshay si aada gaar ahaan awal waxa mudnaanteedu ahayd xagga amniga dhaqaalaha iyo cadaaladda iyo inuu taageero Ukraine inay dimuqraadi ahaan isaga celiso cadownimada Ruushka laakiin waxaas dhan waxa hareeyay markii halkaasi ay timid in arrimo siyaasadeed laga hadlo oo soo farageliyay dubbi hore ee New York Rudy Giuliani وهاجاج dhageysigii shalay waxa uu ahaa kii ugu cuslaa ilaa iyo iminka iyadoo danjiraha Trump ee midowga Europe su'aalo la weydiiyay ninka lagu magacaabo Gordon Sondland waxa uu ahaa nin ku xiran madaxda sarsare ee maamulka Trump intooda badan baaristan iyada ah ayaa lagu eegayay in uu madaxweyne Donald Trump uu shuruud ku xiray kaalmada military ee Ukraine la siinayay iyo in kale Mr. Sondland ayaa cadeeyay in kaalmada military ee Ukraine dib loo hakiyay madaxweyne Donald Trump ayaa isagu ku celceliyay in aanu hor istaagin malaayiin dollar ah oo la siinayay militariga Ukraine taas uu shuruud uga dhigay in loo baaro ninka ay siyaasadda isaga soo horjeedaan waa Joe Biden waana dambi dalka Mareykanka in uu sidaa yeelo haddaba waa kan Gordon Sondland oo arrimahaasi shalay ka hadlay with regard to the request sidii hore aan u cadeeyay arrinka ku saabsan telefoonka aqalka cad jawaabtu ahaa shaqadeeda ayaan qabsanayay as a presidential appointee waayo madaxweynaha ayaa magacaabay waxaan raacayaa awaamirta madaxweynaha we worked with Mr. Giuliani because the president waxaanu la shaqeynay Mr. Giuliani madaxweynaha ayaa inoo jeediyay annagu Ukraine inaan shuruud ku ragno ma aanu rabin we had no desire to set any conditions on the Ukrainians we worked with madaxweyne Donald Trump ayaa isagoo ilaalinaya qoraalkan jawaabta uu kaga hadlay wada sheekaysigii dhacay ka akhriyay buugan waxaan u sheegay ambassadorka anoo u jawaabaya waxba ma rabo in wax la isdhaafsado u sheeg madaxweyne Zelensky inuu waxa saxda ah sameeyo waatan jawaabteedii I want no quid pro quo. waxba ma rabo in wax la isweydaarsho This is the final word from the madaxweynaha Mareykanka waxba ma rabo United States. I want nothing. Thank you folks. Have a good time. I'm going to